madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacin waxa uu ku soo gaaray magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Beledweyne waxa uu salka ku hayay kurgalka xaaladaha ay ku nool yihiin dadkii ka barakacay fatahaadii webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay. waxaana garoonka diyaaradaha Beledweyne si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gacan qaaday dadweynihii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Beledweyne waxa uu indheeyay qaybo kamid ah garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo qaybo kamid ah ay biyo fadhiyaan biyaha oo saamixi waayay in diyaaradihii shacabka ay soo degaan muddo ku dhow ilaa iyo hal bil. waxa uu geesta kale madaxweynaha uu booqday kaamamka ay ku jiraan dadkii ka soo barakacay fatahaadii webiga Shabeelle oo Beledweyne ka sameeyay toddobaadyo yar ka hor kuwa oo ku nool haatan deegaanka Ceel Jaalle. intaasi kadib madaxweynaha ayaa gudaha u galay qaybo kamid ah Beledweyne si uu xog ogaal ugu noqdo musiibadii bulshada Beledweyne ku dhacday waxaana madaxweynaha warbaahinta uu la wadaagay wixii indhihiisa uu ku arkay. musiibada dabiiciga ah musiibo qaran ay tahay doorka casho ah magaaladu ay ku jirtay fatahaadaas soddon kun oo qoys ay kasoo soddon kun oo guri iyo boqol kun oo qoys ay kasoo barakaceen oo qaarkood aan ku aragnay hadda meesha ay ku booqdeen Ceel Jaalle wadankan xaafadan عليها حوقات dadkuna waa deeqaadka waa wadaxay meel la joogo karamaha waxaan ku sameeynay musiibo qaran ah dawladdu ka qaadanayso qaybdooda ku ilaahiraahdo inaan soo gaarno shacabkeena Soomaaliyeed halkaa u waxyeelooday oo la xiqano shariifka iyo xanuunka ay ku jiraan insha Allah wax alla wixii karaan aan keenno awood waa soo bandhigaynaa beesha caalamka international community waxaan ka codsanayna iyaguna inay qayb weyn ka qaataan dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay dibadda gudaha joogaanka waxaan ka codsanayna inay qayb weyn ka qaataan hawshan. madaxweynaha ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ku hadlayay afka duubka dhaqanka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana madaxweyne Farmaajo ka codsaday laba qodob oo kaliya. maalintii ugu horreysay madaxweynuhu noo yimaado mudane madaxweyne annagu codsigaagu waa laba qodob aeroboortka waa aragtay waxba ka sheegayeen codsiga loo weerdiyo waxaan kaa codsanaynaa inadna raacdo oo ilaada magalaay iyo quudada la xiiqato aad soo aragto si aad boorkaa tunto wax hadalba la yidhaahsan waxaad idin markaan u soo noqdaa aeroboort hadda ka hor dowladda talyaaniga inay ballan qaaday aeroboorada Soomaaliya inay dhisayso waxaa dhacday wasaaradda qorshaynta inay ka reebtay aeroboorka Muqdisho oo jiro waqti uu ahayno mudane madaxweyne intaasna la soco diftaasna waa qabnaa. madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo dhankiisa isna hadlay ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu xoojiyo ballanqaadka uu shacabka ka barakacay Beledweyne uu sameeyay. waxsheegina waa ka dhantaa raada ku soo aragtay airportka waa soo aragtay fatahaadii weliba annagoo ka soo noqonnay waa soo aragtay kor waa yeelaalay waa wada indho waxaan hubaa inaad ka dhan tahay in wax lagu sheego annaga waxaa qiimo noogu filan oo karaamo noogu filan oo aan isleenahay wixii aad rabteen waad hesheen imaantinka aad noo timid ayaa noogu filan.
ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay gacan ka geysan doonto dhismaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif si gurmad gargaar ah shacabka ay fatahaadu waxyeeleysay looga soo dejiyo waxa uu dhinaca kale musiibo uu ku tilmaamay fatahaada webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay isaga oo xusay in kaalmooyin kala duwan ay dowladda Soomaaliya la soo gaari doonto dadkii fatahaadu ay saameysay maanta waxaa ka weyn inaan idla qaybsado xanuunka iyo dhibka aad ku jirtaan oo ay keentay musiibada dabiiciga ah oo lagu yeeray musiibo daran oo runtii kulligeedna waa xanuujisay waan ognahay dad kor dhaafaya maanta inay banaanka degan yihiin in laga soo baxay magaaladii weyne ee Beledweyne laga soo baxay oo ku yimid fadhiyaan oo midna qaar dad weli ku qoodaysan yihiin oo raadinaya sidii loogu yeelaa alxamdulilah mashaa laga fadhi waxaan idin caddeynaya oo aan idin wadaagaya inaan abuurnay aan sameynay magacawnay guddi heer qaran oo muslimo oo uu hogaaminayo gargaar ku-xigeenka maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aad iyo aad u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keliya ma aha waddanka Soomaaliyeed kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga dhibka nooga fogaada oo dowladda dhexaa federaalka ah waxaan qaadanaynaa qeyb aad iyo aad u weyn waxaan qaadanaynaa إن شاء الله هنقول إلى وحنسوا علينا كرجال بيتنا هنقول إلى محمد إبراهيم سياد كلسن تي في بلدوينة.